Misku aragtay in aad calooshii hoose ay kusoo bararayso. Misku aragtay in aad maaragtay uur aad leedahay laakiin uurna uu jirin. Mar walba misku aragtay in aad maaragtay caadadii ay ka qaldan tahay. Caadadaadii ay caado maaragtay dhiig zaa'id ah oo ka imaanayo oo period xoog leh oo ka imaan. Videogani dhamayso waad fahmi doontaa waxa aan ka hadlayo iyo maaragtay waxa aan maaragtay aan ka wado waxaas oo idil ama wixii ku keeni karo waxa oo idil. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabi meel walba joogtiin kusoo dhawaada channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Xuseen. Maanta waxaan idin wadaa waa maxay fibroidska maxaa keeni kara fibroidska iyo maxaa lagu ogaani karaa ama sidee lagu ogaani karaa fibroidska iyo maaragtay maxaa daawo u ah fibroidska. Horta fibroidska sidiisba waxaa waaye burooyin ka soo baxa minka gudihii iyo minka agagaarkiisa ka soo baxa waaye. Burooyinkani waxay noqon karaan mostly waxaa waaye non cancerous. Non cancerous waxaa waaye wax aan isu bedeli karin cancer isu bedeli karin waaye. Burooyinka marka waxay noqon karaan wax yar, kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn. Waxayna ku xiran tahay size-ka iyo maaragtay sida ay ayada ku saameynayso. Marka burooyinkan badi lama garanayo wixii keenayo. Dhaqaatiirta ama saynis yahanada ilaa hadda lama ogaanin wixii keenayo burooyinkan. Laakiin waxaa loo dhaweeyaa in ay maaragtay hormoonadaada qaldan darteed ay ku imaanayaan sida hormoonka estrogen iyo progesterone oo qaldamo dartood ku imaanayo. Marka burooyinkan waa maxay marka calaamadaha burooyinkan? Kow fibroidska calaamada koowaad ee la imaanayso waxaa waaye irregular menstruation waxa la dhahayo ama abnormal menstruation waxa la dhahayo. Abnormal menstruation waxaa waaye caadadii oo ka qaldanta, caado xoog leh, caado oo maaragtay dhiig xinjir la socdo, dhiig oo maaragtay zaa'id u socdo iyo sida in ka badan. Midda labaad waxaa waaye calaamado maaragtay oo dhiigga dartiis ku imaado oo kamid ah wadna garaac zaa'id ah, maaragtay wareer, maaragtay daal fara badan maadaama uu dhiigga uu ku keenayo calaamadahan. Calaamada kale waxaa waaye in ay calooshii ay kusoo bararto, in mar qaarkood aad isu malaysid inaad uur aad leedahay haddaad uurkii aad samaysidna ay waxba ay ka jirin. Calaamadaha kale waxaa waaye in aan maaragtay calaamadihii horena u soo sheegay wareerkaas iyo kuwaas inay la socdaan. Calaamada kale waxaa waaye calooshii oo hoostaas oo dhan oo ku xanuunto oo maaragtay calool xanuun uu jiro. Calaamada kale oo kamid ah waxaa waaye gabadhii oo maaragtay shahwadii oo idil maaragtay desire-kii oo idil gabadhii inuu ka dhumo like xaajadii oo idil ma gudani karto oo maaragtay niyaba uma lahan. Midda kale waxaa waaye gabadhii oo maaragtay dhalmo la'aan ku dhacdo oo infertility wax la yiraahdo ku dhaco oo secondary to fibroidska u keenayso oo keenayaan. Marka sidee lagu ogaani karaa fibroidka? Fibroidka waxaa lagu ogaani karaa waa in aad ultrasound aad saartid. Ultrasound iyo dhiigagga iyo hormoonadaada la fiiriyo. Ultrasound ayaa baadhi sheegaya inuu fibroidskan uu jiro iyo in kale. Midda kale lagu ogaani karo fibroidska waxaa waaye waa in aad dhiigagga aad iska fiirisid oo hormoonadii haddii saxan yihiin iyo haddii kale la ogaado. oo fibroidkan lagu ogaani karo malahan waa inaad pelvic scan-ka aad saartid ama abdominal scan-ka oo la ogaado in ay buradani ay jirto iyo in kale. Marka maxaa daawo u ah marka fibroidska haddii aan ka soo hadalnay wixii keenayo oo idil iyo siday ku yimaado. Fibroidska daaweyntiis waxaa waaye laba nooc waaye, medically iyo surgically waaye. Medically waxaa waaye daawooyin oo kobcin leh qaadanaysa. Surgically waxaa waaye operation lagu hagaajinayo oo laga saarayo. Marka medically daawooyinka waxaa waaye hormonal contraceptive lagu siiyo oo daawooyinka oo maaragtay dhiig controlayo oo sida contraceptive ka camal ah oo dhiigga controlayo. Kuwa kale waxaa waaye kobcin oo maaragtay dhiiggaas zaa'id ka baxay oo ku soo celinayo wad garaacgaas iyo waxaas ka celinayo oo dhiig bax zaa'id ka celinayo. Surgically dhanka qaliinka dad fiirisid fibroidka sideed waxaa waaye haddii ay weyn tahay iyo size-kay ku xiran tahay. Haddii ay maaragtay wax lagugu sameynayo waxaa waaye operation lagugu sameynayo myomectomy wax la lahayo. Myomectomy waxaa waaye inta ayada ay ka haysato haddii gudaha ku jirto iyo haddii kale oo laga soo saarayo.
haddii marka ay badan tahay oo maaragtay meelo badan ay ku dhigan tahay oo burooyinkan ay badan yihiin gudahaasi, waxaa lagugu sameynaya waxa la dhahaa hysterectomy. Hysterectomy-na waxaa waaye minkii oo idil oo banaanka loo soo saaraya, laakiin waxay ku xiran tahay gabadhii waa inay ogolaato. asxaabi waxaa soo gaarnay barnaamijkii gabagabadii iyo gunaanidka barnaamijka. Fadlan meel walba aad joogtiin subscribe, like and share-ka naga iloobina. waadna ku mahadsantihiin dadka subscribe-ka nala daba joogo mar walba oo subscribe-ka maaragtay noo saaro. kuwaan noo saarinna fadlan noo saara hadda, waadna ku mahad